odayaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda magaalada Hargeysa ayaa cabasho ballaaran ka muujiyay dhul ay sheegeen in lagu haysto waqtigan warkaasina waxa inoo haya wariyahayaga Cabdiwali Yuusuf Umar qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka degan xaafadaasi Sheekh Biliso ayaa si adag uga hadlay jago ay degan yihiin dadka danyarta ah ku dhaqan xaafadaasi oo ay gabadha qurbaha ka timid ay isku dayayso inay xoog ka rarato tawooyinka ay degan yihiin dadka danyarta ah ku dhaqan xaafadaasi iyo waliba sodoneeyo qoys oo kale oo iyaguna agaarka xaafadaasi yaala ayaa waxay cabasho xoog ka muujiyeen gabadh iyadu xoog ka raranaysa xaafada ay degan yihiin dadkaasi shicibkan tabaalay ee ku dhaqan xaafadaasi ayaa waxay cabasho adag u direen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo iyo wasiirka arrimaha gudaha Cali Maxamed Waran Cadde ayaa waxay u sheegeen inay dhibaataysan yihiin si degdegana loo soo gaaro cabashadoodana la aqbalo ku tumay baanu nahay mudane madaxweyne waxa weeyaan gabadh ingiriiska ka timid inaad nooga eexataa meesha ma taalo caruurta 300 oo qof ayaa kuugu riday maalintii lagu halka ka tumaynay ayaa kuugu riday codka inaad cod quraata ka doorato oo isku shushubtaan dumarka sare ma ahayna laga qabto weeyaan gabadhaasi dulmiga nagu soo doonatay ee dadka xidhxidhay ee waxa la waxay ku xidhan yihiin aanay jirin ee iska xidhxidhay rag iyo dumarba halkaasaanay nagu soo weerartay waxay tiri mujaahidad baan ahay annaga mujaahido masaajidka iyo madaweynba taagnayn oo maydka iyo dhaawac rogayn haddii mujaahid loo baahan yahay weey dalka iminkana markii la soo galayna ilaa maalintii ilaa maanta Siiraanyo halgamaynayo anigu waanigi yiri kun hadaanu hayn kulmiyaanu nahay xaafadoo dhan ana madaxa isugu soo dhuftay oo iri kulmiyaynu nahay kulmiyihiina waanu ugu codaynay ilaahay baa nagu guuleeyay maantana waanu codaynayna madaxweyne wax noo qabo oo inantan yareed nagu soo hogaamisay shalay ingiriiska ka timi teen naga qabo kamida mujaahidiintii dalka u soo hargantay u dhaawacantay kuwa dhintay iyo ku noolba waxaan maanta rumaysnaa inay arintoodu wallahi farxun tahay dadweynaha halkan isku yimid ay u jeedaan wadadka halka degan bulshooyinka halka degan soo degay 1991 markii dalka la xoreeyay inankii ku dhashay maanta uu ku dhalay oo uu ku leeyahay hadaad markhaatigeeda doonaysaan waan soo socdaa halkan uu ku dhashay waanu ku dhalay hablaha yareere maanta istadaleelada ee xiranina waas iyo hooyadood waasida afar bilood bay xiran yihiin inaan xabsigan dhexe ayuu ku xiran yahay afar bilood without reason ay waliba maxkamaddu xukuntay 13 sano 26 sano halka deganay gabadhana waxay degan tahay maxaa dhacay sanad iyo 8 bilood bay degan tahay warqadeediina wada aragteen mujaahidku waa kiidin sheegay sheekh niga kalena waa kiidin sheegay hadalku wuxuu ku eegay dulmiga meeshan ka jira dulmigana dadka ku baabado dawladda ku baabado cidina kuma noolaato marka waxaan ka codsanaynaa madaxtooyada oo madaxweynaha ka codsanaynaa in arrinkan hoos loo eego arrinku aad buu foolxiyay